dowladdii xasan sheekh maxamuud waxaa farta lagu fiiqi jiray faarax sheekh cabdiqaadir dowladda hadda farmaajo ee hadda jirtana waxaa la leeyahay oo farta lagu fiiqaa fahad yaasiin oo kuma fahad muddaan aqaane markii ugu horreysaynu shakhsiyan is hor fadhiisanay waxay ahayd 2007 anigoo jooga magaalada Asmara isaguna journalist u shaqeeya wariye u shaqeeya Aljazeera dhalinyar buu ahaa magaasi samanka dadka Soomaalida wixii 40 u dhow ayaa dhalinyar la dhahaa 20kii kama hadlano fahad intan ka aqaano waa nin go'aan leh fahad intan ka aqaano waa nin dantiisa gaarta ah sida looga shaqeeyo yaqaana laba kalmadood baan ku sheegay oo af Ingiriis oo macnaynaya waxaan u dan leeyahay inaan ka idhaaho fahad kelmad waxa la yiraahdaa smart waa qof garaad weyn leh midna waxa la yiraahdaa cunning waxa weeye nin qof xeelad badan dacwada xeelad badan baa la dhahaa fahad markaa waa nin cunning waay xeelad badan waay markaa wuxuu doonaya wuu yaqaanaa meesha uu socdo wuu yaqaanaa dadka waxa uu fulin kara wuu yaqaanaa taasi waa taas talabaad isaga afkiisa ayaan ka hayaa sida inuu yaqaano sida lacagta loo soo qaado dawladaha looga soo qaado iyo sida loo gato dadka baarlamaanka la soo gashanaya afkiisa annaka oo safrna wa birabbil kacba ayuu ii sheegay taasina wuu leeyahay muxuu lacagta iyo gadashada baarlamaanka uga dan leeyahay wuxuu uga dan leeyahay waxa weeyaan inuu ku danaysto isagu ku fushado wuxuu doonayo saaxiibadii wax siiyo kuwa reeraha uu doonayo wax siiyo markaa isagu noqdo kingmaker waxaan lagu yiraahdo boqorkii sameynaya xeelada oo dhan inuu noqdo una laakiinse xagga hore soo fadhiisan taasi waa midda kale waxa weeyaan fahad ma garan karo mana fahmi karo intan anigu aqoontiisa aqaano inuu arko waxa ummadda oo dhan u dana ma arki karo wuxuuna arki karaa dawladnimadu inay qabyaalad ku dhisan tahay unbuu arki karaa aniga afkiisa ayuu iga yidhi laba reerood unbaa madaxdu ka soo bixi kartaa hawiye iyo daarood bay ka soo bixi kartaa isaguna wuxuu raadiyaa hawiyaha ugu fariidsan ma raadinayo daaroodka ugu fariidsanna ma raadinaya ku wadan karo oo isagu ku shaqaysan karo ayuu raadiyaa fahad markaa waxa weeyaan meesha inuu isagu markaa yahay dadkii ninkii xagga dambe ka maamulaya waa tiihan ku keenay inuu yahay isagu mulkiilaha dawladda ta kale ku xigsiin karnaa waxa weeye haddii maalan had soo hadal qaadid taariikhda Soomaalida oday Soomaaliyeed way farabadan yihiin dadka suugaantii Cabdillaahi Suldaan Timcadde loo oran jiray ayaa madaxnimadu waxay tahay iyo waxaan ahayn ka hadlay Cabdillaahi Suldaan markuu ka hadlay wuxuu ku leeyahay waan daari doonaaye kuwa doonaya inay kursiga waligoodba ku fadhiyaan iyo kuwa doonaya inay dadka ugu adeegaan markuu waqtigoodu dhamaadana doonaya inuu ka tago bal arrinta iyada aan dhageysano fahad waan soo noqon doonaa من تغمر كي فولتي مدى شلو جوغي متانا درارتي دشيلو مشحر دايي كلام ميرين تنلبا على المريديس ويدا مرجع كلام ميرين تنلبا على المريديس ويدا مرجع ربي ما هد نقيسي مركانني قمي سايي مسكي برلمان هذا مركيان ميلي سوقو قيني مدحوي ليالي يوم مركي من ازدرلو دورتي مسكعدي وانا يدي يوددكي ميلو ودا جيديني من قيم الملك وقوي ملك لذا nimankii melmeley waa kuwii maalaykalidooda hadday maalintiina horkacaan midho ma weyneene manaxanadii baan arliga meeriisna u toline marnaba yaydinaan dhicin kuwii malee ku soo goosay miyigana nimankii mindida meel walba u dhiibay kuwii muusanow iyo tolla'ay nagula meeraysay nimankii mashaqaday dhigeen reer badhanu moostay suntaynagu mudeen wiilashii lay ismartii
marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan madaxnimada uu tima cadde ka hadlayo farmaajona ma garan karo fahadna ma garan karo marka fahad geesinimo wuu leeyahay go-aan wuu leeyahay qarannimona ma laha dadnimo soomaali loogu danaynayana ma laha fahad ma fahmi karo waxay wadaniyadu tahay wadaniyadu waxa weeyaan inaad dadkaaga adigu iska horreysid sidoo tidhaahdid waxaan dadkayga uma qalmaan inkastoo aniga ii wanaagsan tahay ummadayda waxaan ima qaban karto fahad ma garan karo isagu wuxuu haystaa waxa isaga u wanaagsan inay qaranka u wanaagsan yihiin marka ma garan karo maanta iyo berri iyo mid ka dambaysa ma garan karo qarannimo fahad tanasulna waxa weeyaan Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa waraabuhu hadduu qaniino wax lagama fujin kare waa in loo gooyaa fahad in loo gooyo mooyaane inuu dabciyo si ay dadka kalena wax ugu yeeshaan ma garan karo ugu dambeyntii marka Professor Cabdi Ismaaciil Samatar adigoo mahadsan waqtiga aadna siisay xalka Soomaaliya halkii ayuu ku jiraa marka waxa weeye xalka Soomaaliya walaal maanta meesha la joogo horta qofkii darajo ka raba wadanka astaantiisu waa inay noqotaa dad nin u diirna xadadkiisa waa inay noqotaa ama qof u diirna xadadkiisa waa inay noqotaa diirnaxa macnihiisu muxuu yahay waxa weeyaan markaad aragtid walaasha oo diirkeegii dugaagu cunayo walaalkaa oo balanbalsan oo dadaalaya aan haysan cuntadii u cuni lahaa waalid carruurtiisii doonaya inuu wax baro oo iskuulla u waayey ama iskuul fiiska ka bixin waaye waa inaad waxaasi noqdaan wax adiga kugu jira ee ku qaban kara marka xalku maanta wuxuu ku jiraa waxa weeye laba xoog mid wuu wiiqmay laakiin haddana laba xoog ayaa iska soo horjeeda mucaaridka ciday doonayaanba ha noqdaan iyo dowladda wixii ahaan jiray waxa la socda kani 2 sanadood baan ku darsanayaa buu leeyahay qoladana waxay leeyihiin kuma darsan kartid waqtigiisii wuu dhammaaday waa run dee laakiinse dowlad lama hayo si hayna meeshaasi u bannaanaan xifiltankana una rabshadahan xamar ka bilaabmay u sii kordhin waxaan ku talin lahaa waxa weeye sanad muddo ah dad farsamo yaqaana dowladnimada ha loo dhiibo 6 bilood dabadeed waa inay dadkaasi keenaan si doorasho uga dhacdo magaalada Muqdisho dadka reer Muqdisho councilkoogii iyo gudoomiyahoogii ay u soo doortaan 2 in 12 bilood gudaheed bisha 11aad waa inuu dhammaystirmaa doorashadii waddanka oo dhan sida qulay ku dhici kartaa waa sidaas weeyaan dadka meesha loo dhiibay farsamo yaqaankeena waxa shuruudahayna ka bixi karin waxa kamid ah inayna iyagu siyaasiyiin sanadkan iyo ka dambeeyay midkoodna noqonay haddii taa la keeno dadku wuu degi iimaanku wuu soo noqon kalsooni baa iman doonta sidaasaan anigu qabaa inuu xalku yahay walaal aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barasare ka ah jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Universal wareysigan waxaa qaaday anigoo ah deeq darajo intii aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmeyno waxaa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo